أمتي محا كيني محا برباريي كتب التاريخ waxay noo sheegaysaa ayo ikhwa akhawat in cilmaaniyadu ay ka bilaabantay dhulka reer galbeedka waliba Yurub ay ka bilaabantay sababaha keenay wuxuu ahaa qarnigii 17aad iyo qarnigii 18aad iyo wixii ka horeeyay waxa jiray halgan iyo siraac ama iska horimaatin dhaxmaray kaniisadda iyo cilmiga sayniska oo ay doontay inay kaniisadda iyo nimanka baadiriyaashu iyagoo ay kontroolaan wixii culimada saynisku ay ka oran lahaayeen sayniska iyo wixii la tacaluqa dhibaatooyin badanna way soo gaarsiiyeen iyo tacdiib iyo torture nimankii sayniska ahaa ee culumta tabiiciga ah ku takhasusay taasi waxay dhalisay karaahib ay dhalisay ay sayniskii ay naceen oo ay karaahiyeysteen kaniisadii عموما waa taariikh dheer oo taariikhda Yurubka lagu yaqaano waxay gaadhay heer kaniisadii iyo cilmigii la kala fogeeyay nimankii sayniska ahaa iyo culimadii culuntaasina ay noqdeen kuwa xor ka noqday baadiriyaashii iyo xukunkii kaniisadda waa qarnigii 17aad iyo qarnigii 18aad xaqiiqatan ayo ikhwa yani dhalashada cilmaaniyadu waqtigaasi ay Yurub gudaheega ay ka dhalatay culimo fara badan sida Sheikh Muhammad Qutb rahimahullah ta'ala Allah yahfadhu u ku tilmaamay waxa weeyaan wuxuu ahaa fikirkaasi yani taariikhda reer Yurubka wuxuu ku reebay raad laxaad oo ilaa maanta aan ka harin markii diintii iyo siyaasadii la kala saaray diintii iyo dawladii la kala saaray daatana waxa timid thawradii Faransiiska the French Revolution kaankii Faransiiska ayaa yimid oo isaguna u dhameeyay cilaaqadii ka dhaxeeyay kaniisadda iyo dawladda u dhaxeeyay 1905 ayaa waxay soo saareen Faransiisku wuxuu soo saaray qaanuun kala soocaya diinta iyo dawladda baadiriyaasha kaniisadana u diidaayo oo ka manciyaya inay ka hadlaan ama raygooga ay ka dhiibtaan arrimaha dawladda iyo arrimaha siyaasadda marka halka waxa kaaga muuqanaysa in cilmaaniyadu ay tahay arrin reer galbeedka ku gaar ah dhulkooga ayay ka dhalatay duruufo iyo xaalado khaas ah oo iyaga ku gaar ah ayaa keenay in cilmaaniyada la helo way caalam islaami waxay u soo wareegtay bilowgii qarnigii 19aad yani dhamaadkii qarnigii waxaan jeedaa wakaasi bilowgii qarnigii 19aad ayay leeyihiin culimada taariikhdu ayaa waxay soo gashay dalka Masar iyo Turkiga iyo Lebanon iyo Suuriya iyo Tunis Ciraaqna waxay ku biirtay dadka cilmaaniyada qaatay dhamaadkii qarnigii 19aad dawladaha kale islaamka badankooga nidaamka cilmaanigu wuxuu soo galay waa qarnigii 20aad gudahooda oo xitaa Soomaalidu ay ka mid tahay seen hadhow sheegi doono oo isticmaalku ay cilmaaniyada ay keeneen haddaba ayo ikhwa akhawat yaa la oran karaa waa cilmaani waxa la oran karaa qofka isagu afkaartaasi iyo nidaamkaasi rumaysan ma hayno inuu qofna inuu la doono leeyahay hebel waa cilmaani he's a secular maaha ee waxa weeyaan qofka muumkiinoo noqdo qof caadilo waa noqdo oo wax kaamta iska itlaaqin laakiin qofkii isagu doonta ee isku sifeeyay yahay cilmaani inuu secular yahay afkaarta rumaysan u halgamaya in qadiyadaasi ma garanaysaa in ka shaqeynaya waxa weey laga xishoodo maaha in xukunka sharciga ee mutaystay dusha laga rigo inuu yahay cilmaani intaan taasi dhaafin ayo ikhwan akhawat waxaan ku darayaa in cilmaaniyiintu ay laba nooc yihiin wana taqsiim muhiim oo loo baahan loo fiirsado waxa jira cilmaaniyad mulhida bimaana waxa la yiraahdaa waa anti religious bay rahdaan waa cilmaaniyad mutatarrifa oo ilhaad ay rumaysanta bimaana waa maxay iyagoo rumaysan in diinta iyo siyaasadda la kala saaro diinta iyo dawladda la kala sooco ayaa haddana waxayna rumaysnayn jiritaanka Ilaahay bayna rumaysnayn oo atheist bay yihiin waa mulhidiin ولذلك ساسا لو متطرفين لو يدي marka cilmaaniinta kale way la wadaagaan qadiyada فصل الدين عن الدولة أو أما حتى على فصل الدين عن الحياة way la wadaagaan in ra'yigaasi laakiin waxa u sii raacay in jiritaanka Ilaahay ay diidan yihiin nooca kale cilmaaniyad waxa weeyaan ayuha al-ikhwa wal akhawat wa cilmaaniyad iyadu rumaysan
ديمها الرميسان وحن كذا إلهي ترتان كيس الرميسان إلهي ترتان كيس الرميسان لكن أن أقولين إن دين تي سياسة اللي يستحقيه ما أقولها كو عالم الإسلامي كنا الله سياسي وبدين وعلى جيبه إنه تكذو إنه صومه إنه حجيه على جيبه لكن ما حد عكرتها أنا أقولين إن دين تي سياسة ده ليسكوك هنا إن شرعات الدلك لو حكومة ما أقولها حلقنا أرنب بان شعلي إن رمانتين أنو في صنع أو علمانيين يجوا إلهي الرميسان لكن دينتي يدولتي كلا صارية أيها كخطر بضن علمانيين ملحدين تأه كيف هذا؟ إنا سويدي سامبا لغي يابا سو نين إلهي الرميسان لكن دينتي دولتي كلا صارية سو خطر بدن هي علماني ملحدو إلهي بالرميسنين أن دين نبقى أقولين وحوغا خطر بدن هي ماها إساق لفتيسة إيوا محي والرادك ومدى كلية هي عالم الإسلامي وايو أيها الأخوة والأخوات إما كان نينك ملحد كان إلهي من رميسني أرنكيس وعدي حتى تذكر عامدة البسطاء من المسلمين كما قرصوني النكاسية هي كافر بالله وبرسله وبكتابه وبدينه وحكم كي قال لماذا تشعر لك صار يا صفضت نيري أن إلهي من رميسني دي واحد من الله ترماها لكن كان كلاه يسوي له إلهي والرميساني هدنا لكن إن له وين مني بروك هذه انتظروا إلهي الرميسنا لكن دينتو مساجد كهكو كوبناتو شريعة ما أقرين وعيناً ميلها دلالك إسلام كي مسلمين يكونوا شاهد أقليات قالنا يكونوا لهين أي سي أقليات كاسي أيورها لقليانا وحين هذان الدين لله والوطن للجميع الدين لله دين تلا بس كله لكن وطنكم ونقدر حيبان أو محي سياسة دلكا أما دقالها دلكا أما وحبرشة دلكا أما سيد أمد لو توجيهنا أيه وحويا دين الرأي كمالها وحبنا كما أورن كريسو بالله عليكم ما أنا اللي بيضو أنا كل خطر سنين وكل خطر سنين ولذلك أيها الأخوة والأخوات علمانية العالم الإسلامي ما أنت كن نول واحد شراه إن أي فهمين إن أنا عديسن كرين كسوهر شيء كأي كسوهر شيئان شريعة ويحول أمد بدن كي ما أنت شريعة بدونيسة رج يدوم أربعة شريعة له من دوننا إسلام كأنه لو حكمان دوننا وانو ترى جريني شعودي ونافع ويدي شعودي إذا سكب بعضيبا وقدافة التاريخ ذا أيال قطوري كابيتاليزم كي يرى سمالجي ده وحويا يسقع في الشلمو وذكر ما أنت وحده عاي فناشر كرايسيس كي الأزمة المالية كابيتاليزم كي يقول عاي وحويا وضرك ترمانت مركب مسلمين توحر كان إن شريعة إلهي أي تهيد النبضة الرحمة يهور مركا وكنيسة يعني من كي علمانيين تها واحد هذا ومدن كم وظهر من كريمينه ومدن لكن بل أنو خيامينه سينو خيامين كرنا واحد يبغون نقدين عقائد منحرفها أو تاريخ الإسلام كله يقاني عقيدة سوى كم تهي عقيدة جهم وصفوان عقيدة جهم في الإيمان يا غلاة المرجئة جهم وصفوان محي إيمانك كاعتقاد سنة غلاة المرجئة محي إيمانك كاعتقاد سنة حلقة أي أهل السنة الليين إيمانك وحويا قلبك وكتيرا عرفنا ولا غدا واقيا جوارح يأدين كنا ولا غدا قميا يجوا واحد هذين قارب حتى غلان نقضي واحد الإيمان هو المعرفة هداد مرب إلهي كجران صوت كأب وصنت هاي قلبي لا مؤمن بات هاي كفر قوم هاي والجهل إن إلهي كجهل هاي بمعنى عقيدة سجاه من صفوان يوم من كان معه وها غلان دي مرجئته وحايدي إيسا قفكو إنو نبض قلو وعذاب كلاه وكان نبض قلو وحا وقفلا إنو إيمانك قلبك وكقرته إلهي وجرا معرفة إلهي أدي لا صار راعيه وقلبه يكرم أيوه لكن وحو أدين كسمين أيوه وحو كل رقم أيوه سنة ما هو سجوده مؤمنين تيم موحدين تكركها كودا قويو أعلام الإسلام كهلا صفته مصحف كقدافة كتاب كاي هكرد سدو ابن القيم رحمه الله تعالى وكنت المامي
وحوين ومؤمن إيمان كيسو كامل يهي بل أيها الإخوة والأخوات لمن